waxaan soo booqday gaari proof ah oo uu wadan jiray madaxweynihii hore General Maxamed Siyaad Bare gaarigan oo soo saartay shirkadda Fiat oo magaciisu yahay Janta Taranta Uno sidoo kalena waa proof waxa ka muuqdo dhaawacyo badan hadii aaleed xabado iyo hadii aaleed jug kale gaarigan oo Maxamed Siyaad Bare uu lahaa ayaan insha Allah information badan ka ogaan doonaa aniga kama warhaayo yani xilliga halka la keenay xilliga uu ahaa sanadku wadan jiray waxyaabahaas oo dhan yani ma ka warhaayo anigoo halka maray ayaan arkay gaarigan oo waxaan dareemay inuu taariikh leeyahay kadibna waxaan weydiiyay dadka deegaanka waxay uu sheegeen in uu lahaa Maxamed Siyaad Bare kadibna waxa sii weydiiyay odayaasha xaafadda kadibna waxa sii ogaaday dadka gacanta ku haayo kadibna waxa la ii ogolaaday inaan maanta bulshada Soomaaliyeed aan dib u xasuusiyo ama aan tuso yani gaari kamid ah gaari taariikh ah wixii information ah oo gaarigan ku saabsan waxa inoo sheekeen doona insha Allah ducaale sidoo uu idin sheegay walaalkeen Asad Xaajiyo baawurkan wuxuu horyaalaa gurigeyga waa baawur taariikh leh waxa lahaan jiray Allah u naxariistay madaxweynihii hore Jaalle Maxamed Siyaad Bare baawurka noociisa waa Fiat Janta Taranta Uno ama Rigata ama 131 baawurka ugu horeeyay oo proof way xabad ma karta la yiraahdo arko aha in ka hor laakiin ka hor qof sheegayo oo Soomaaliyana ma maqal waxaan jeclahay inuu yahay baawurka ugu horeeyay oo proof oo la keenay dalka inuu asaga yahay dadka reer magaalka maana qof walbana ma aqoonin oo baawur badan oo noociisa aad jirtay oo Janta Taranta Uno Rigatada ahayd waa baawur aysan xabada korin oo bullet proof ah waliba anti qaraxna ah markuu muuqdo baawur caadi u muuqday baawurka marka Jaalle Siyaad ayaa lahaan jiray kadib dagaaladii sokeeyay waxa laga soo helay degmada La Foole kooxdii soo heshay waxay ku tijaabiyeen xabadan dhishikaha loo yaqaano markay ku tijaabiyeen waxa la igu yiri waa sheeka igu tahay xabadii tay soo wareegtay mid kamid ah ku dhacday ay dhaawac xun u geysatay ayaga markaas waxay ka eedin inay tijaabiyaan baawurkan inay xabad karin in kale sababtoo ah Soomaalida badanaa ma aysan aqoonin baawurtan xabadaha karin waagaan dambe aad loo bartay halkan hadda aragto waxa lagu dhuftay xabada loo yaqaan dhishikaha waxa bacdi markii dambe in la kala gagato waxay gacantiisa gashaa la wiiri asagana Allah u naxariistay General Aidid ayaa ku socon jiray kadib markii ay isku dhaceen Mareykanka baawurka wuxuu noqday target waa la iska sii intaqaano iska dhaafiyay gacmo kale oo badan ay soo gashay ilaa ay gurigeyga hortiisa oo nin saaxiibkay oo soo dhigto muddo hadda laga joogo dhowr sano marka dibku ugu weyn berihii hore ay soo dhan sidan u ilaalinayo waa ku nool ciyaalkii markii la yiraahdo baawurkan waxba ma karaan markaan maqanay burus iyo waxay soo qaadanayaan feeraton diine iyo wax aygo garaacayaan ku soo baraaruga ciyaalkii si fiican u buduujiyay oo jijibay maana markii hore waa fiicnaa waa furmaayay xataa waa kacay laakiin hadda waxa waaye waa xaaladiisa aad u fiican marka waa kaas sheekadaas uu leeyahay dad kale oo si fiican baawurka u yaqaanana waa dhici kartaa inay jiraan baawurkan markii burburkii kadib gacmo badan oo soo maray sidaan hore idin kugu sheegay oo General Aidid ka mid yahay rag kale ay ka mid yihiin ninba nin uu ka gatay ugu dambeyntii mataqaanaa meelaha la iska dhigay nin saaxiibka ayaa soo gatay oo guriga hortiisa soo dhigtay marka baawur gacmo badan soo maray waa taariikh fiican leh taariikhda Soomaalida mid ka mid ah uu ka mid yahay
baabuurkan waxaan arki jiray mararka qaar isagoo lagu socdo laakiin gudaha mataqaanaa muraayadu waa beersal qofka gudaha ku jira aad uma arkaysid qofka wata ma arkaysid laakiin magaalada inteena reer magaalka caan oo noo aha waan naqaanay baabuurka ugu horeeyay oo proof way xabad ma karta la yiraahdo arko ahaa ka hor qof sheegayo oo Soomaaliyana ma maqal waxaan jeclahay inuu yahay baabuurka ugu horeeyay oo proof oo la keenay dalka inuu asaga yahay dadka reer magaalka maana qof walbana ma aqoonin oo baabuur badan oo noociisa aad jirtay oo janta Trent una rigaatada ahayd waxa ka muuqda gaariga dhaawac badan kuwaas xabado miya xabad hal xabo oo dhashiika bas ku taalay dhaawacyada kala arkaysid oo dhan ciyaalka xaafadda waa burus iyo waxay u soo qaateen feertu diinay markii la yiri baabuurkan waxa ma karaan yay u soo dhuumanayaan markaas ay garaacayaan ووري sidoo kale waxa ay muuqdo sawir aad u qurux badan oo artist gareeyay يعني ducaale aabay ma sha Allah gacantaada ku sawirtay gacantaydan ku sawiray waxaan u sameeyay macawisleyda waa kana u jeedaa aab ducaale aadan afay ku qoran labadii shabeel oo mid macawis xiran midka kale tuutaha xiran difaaci dalka ah cawbaarka iyo ciyaarta wali shaqadana qof walba waa taqaanaa koo kale macawisleydan u soo wadaa waa kana qabya sawir kale oo dhax u maraya jiro oo asagan macnuweyn ku fadhiyo insha Allah intee ku soo bandhigtaa marka sawiradan ma wili ma soo bandhigin oo ma taqaanaa meelan ku bandhigana ma aqaan ciidanka u geeyna ma aqaan iyo saan yeela ma aqaan laakiin taariikh ahaan isaga qorooya waana alaab qaaliyana waa ka sameeyay canvas qaaliye rinji qaaliye wixii dhan waa ku sameeyay ma sha Allah asagana hool kan macawisleydan isaga laftigiisa u soo wadaa okay ha asagana hoosh dhinacu ka wadaa oo hee soo ujeedid rinjigiisa horyaal oo hool ayaa dhax u marayso يعني عبد علي فما سنتاي عبد علي وقتي افضل حاجه ثانك يو هذا idinka asad xaajiyo ma jeceshiin mise nacibtiin gadaal looga durgay ha dhibine kuleela ku disheenbe gadaal looga durgay ha dhib ka dhaaf هاي ووري وقدام بنتي انفورميشن بدن ام waxyaabo badan waa ka ogaateen dabcan yani qiimaha uu leeyahay yani gaarigan taariikh uu leeyahay waa dareem kartaan anyways insha Allah muuqaalku inoo dhamaaday oo barnaamijku inoo dhamaaday hay oh my god yani
tiimka xaafadda wax laga duwaay oo he barnaamijka xitaa iyaga ka duwaay ما يسكت لا بسم الله هاي اوكي ثانك يو هاي يا تاك خالد فراك بعد او ماي جاد حافظ انجو وغاري هوس يالو تيم 27 برنامجك كدوي واي ويسوف بحدافي اسكيلالي warbixinta aan gaarigan idinka sii rabay iyaga mashquulayaan oo he laakiin waxa ku filan warbixinta uu siiyay yani abu ducaale this crazy man gabdhayna ma nala socdaan ay socotay ma dhantiin